بريسة وكسرام هذا يعقوب النصر وقاله جروين النصر وقاله قول سومالي قول قولون عطلي كلها قوميان قيت كاك شفوي قوينيان كلها قوينيان عطلي كلها قوميان قيت كاك شفوي قوينيان قول شيء قال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا خيارتي سودو هذا ما أنت أنا وحكي لي مسوق جرينين وحان مقويا شريف شيخ أحمد مال لها ما كان يا ديارة لقى إلي كوو كلا سيدان كوو كلا ساني كوو كلا سيدان أنا وحان بلا يا بناي نمن كان هوية لليه oo maanta hawiye ma ahan dadka isku tilmaamaya inay yihiin siyaasiyiin hawiye ah inay yihiin dadka isku tilmaamayo ayaan rabaa inaan maanta la hadlo wax siyaasiyiin aad tihiin male wixii la idinku sheegi jiray ayaad hadda u dhammaanay haysaan waayo dad baa idinku orkacsanooya siyaasad qalafsan oo waddanka ka jirta ayaa la idinku orkacsanooya bal kaalay shariif sheekh axmed waa nin xasaanad madaxweynenimo soo qaaday waay ummadaasayto meesha degan inay dulman yihiin asaga war uma haya miya shariif sheekh axmed marka asaga dowladdii maanta oo mas-uulka ka ahayd dalka soomaaliya oona loo aqoonsanaa hadday tiri annaga shacbiga soomaaliyeed meesha ku baaba'aya dartiisa annaga meeshaasayto wax dowlad la yiraahdo uma aqoonsani wardantiisa maxay tahay marka asaga uu baxayo oo uu leeyahay aniga waxaan ka qayb gelayaa maxaa la dhihi jiray caleemasaarkii oo ninkaasayto dulmiga meesha ku taagan oo ummadda laayay har cad hilibkooda googoosanaya wax kasta ku samaynaya oo dadkii baday inay wax oo maanta cad ay cuni karin cunsiiyo kii daraad ka yimid maxaa la dhihi jiray buur madoobe iyo dhulkaas ka yimidna cadka kan ugu fiican kismaayo cunayo ninkii oo maanta kismaayo u dhashtayna oo cadka kan ugu xun oo rag u qalmi karin uluma u qalmi karin uu cunsiiyey adiga markii aad leedahay waa baxa meeshan tega ilaahayo adduunyadana war soomaali way baaba'day magacay ka dhimatay qofka xasaanadiisa maba kala garanayaba ma anoo madaxweyne soo noqday ayaa hogaamiye kooxeed oo al-shabaab ah ayaan garabsiin karaa markaasay ku leeyihiin madaxweynihii soomaaliyeed madaxweyne war bullshit wax madaxweyne ay hadayba xoog iyo qabiilay ku haysteen maxay ku haysteen iyo maxaa la yiraahdaa bahalkan xunka ah al-shabaabnimo iyo maxaa la dhihi jiray war waxaan leeyahay aniga shariifku ma dhahaya hebel axmedow iska istaafurlayso haddiiba nin muslim tahay oo maanta muslimnimadaada muslim khaalis aad tahay oo maanta qofka muslimka ah waxaa la yidhi wixii adiga nafsadaada nacban tii walaalkaagana u necbanow wixii nafsadaada jeceshahayna tan walaalkaaga u jeclow haddiiba sheekh shariif miyaa ma ogi adiga sheekhna kuma dhihi karee oo adiga maanta aad tahay qof muslim khaalis ah madaxtinimadii ku soo martay iska dhaaf aniga waxaa maqlay in waalidkaaga u ahaa oo macnaha maxaa la dhihi jiray sheekh u ahaan jiray warniyahow
tii waalidkaaga u noqo anaga reer koonfurta reer maxaa la dhihi jiray jubbooyinka haddaan nahay meesha waa ku dhiban nahay waa qaylina waa noognay ma maqlaysaa warkaan dhanna hawiya idinkaa siyaasiyiintiina noo keentay markii kow oo baarlamaanka diiday inuu aqoonsado dowladda Jubbaland ayaa waxaa aqoonsaday ninka la leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud oo hawiye ah ma maqlaysaa welina dabada nagu socota dabadayna ku jirtaan welina dabadayna ayaad ku jirtaan daaroodna waa kan idin caaya oo la leeyahay dameerkay rartaan aqli ma qabaan maxaad idinka marka daaroodka aad ku tixgelinaysiin wax ii sheega bas daaroodka maxaad ku tixgelinaysiin waa siyaasiyiintiina hawiye ah waxaa la idin leeyahay wax ay yaqaanaan male dameeray dusha ka saaran yihiin bababababa intu waay kan waay saan waay intu waay haddana waad u daba dhaqoysiin masaakiimiin hataa dhibaatadooda ma arkoysiin daaroodkaad u daba dhaqoysiin mar aad baxdaan Puntland aad tagtaan mar aad soo baxdaan Jubbaland aad tagtaan war idinkaa badal leh idinkaa dad leh dalkiina iyo dadkiina maad wax u tartaan galmudug maad wax u qabataan galmudug haddaad idinku wax isku haysaan galmudug maad wax u qabataan wax yaraan wax idinku sheega idinka waxaad diidan tihiin idinkoon xamar iska lahayn oo xamar magaalo madaxdii Soomaaliya dhan ay tahay ayaad waxaad u doodaysiin waxaad leedihiin idinka iyo maxaa la dhihi jiray odayaashiini iyo duubabkiini maqaanka xamar maqaanka muqdisho ma idinkaa iskale muqdisho idinka ma iskale waayahay dadaad dalkoodii ayaad rabtaan in dad oo dulmis wato inaad garab ku siisaan markaasaad leedahay maqaankii xamar maqaan maxaad ka taqaanin dameerihiina baha kora dameeraha rarta dameeraha anaa runtii idin sheegaa kii isoo cayn karana hay soo caayo orda dameerrow dameerkiina rarta anaga beeraley aan nahay beeraha inaan weli ku dhegannahay laakiin idinka waxaa la yidhi dameeri dhaan raacday ayaad noqoteen dameerkiinana waad ka tagteen siyaasaddiina kuma jirtaan haye dameerkiinaan ku dhahay waad ka tagteen waad ka degteen dameerkii waa ka degteen waa dhinac ordaysiin siyaasaddiina waad gaari lacdihiin dhibka weyn maa jira mar walba qofaad u naagaynaysaan xasan sheekh waa baxa dadas u soo naagayna kan waa shariifku waa baxa dadas u soo naagayna ilaahay ku roonaadee intii madax isku sheegteen oo dhanba dad unbaad u naagaynaysiin naageeskan hadda ma bilaabin idinka ninkii la dhihi jiray aadan cabdulle cusmaan madaxweyne waayahay waa la dhihi jiray daarood unbuu u naagaynay naagtiisii unbaa awoodda lahayd maxaad tihiin idinka war ilaahay haddaad ka cabsanaysaan waxaan aad dalka ku wadaan iska daaya dad waaweyn noqda sharaf leh aniga wax kale ima soo gelinin aniga nabad iyo nololna ma ihi nabad iyo nolol aniga ma ihi aniga waxaan ahay cid allaale cidda Soomaali ah uluma ha noqoto caam ha noqoto siyaasi Soomaali ma bajiraba in allaale intii Soomaaliya wax fiican wadi karto ayaan aniga la jiraa maahay nabad iyo nolol farmaajo iyo jini iyo aniga maba aqaanba waay farmaajo hadduu wax dari lahaa mar hore wax ii qaban lahaa maay hal hadalan ka hayaani wuxuu yidhi haddaan doorashadaan helo niman walaalahayna ilaa iyo waktigaasayto dulmi lagu hayay ayaan wax u qaban doonaa nimankaas annagaa isku malaynayni ilaa annaga mababa ahanba annaga ma ahayn reer seediyaashiisa murursaday ahaayeen qolada uu sheegayay murursaday ahaayeen maahay annaga ma ahayn marka farmaajo maxaan ka raacaa ani farmaajo shaqo kuma lihi
dulmane waa ku sala aniga farmaajo shaqo ku mali nabad iyo nolol shaqo ku mali maadaama anigii dulmanaaba booskayga uu geliyey murursade uu geliyey oo murursade wax u qabasho u galay aniga maxaan farmaajo ka rabaa ya seediyaashiisu wax u noqday marka aniga waxaan dhihi lahaa war dalkan dawlad idinka doorateen ayaa madax ka oo la aqoonsan yahay ilaa UN meel kasto laga aqoonsan yahay hadda ayayna kabasho ku jirtaa marka inaad farfaraysaan oo balaayo aad ku dhigtaan ya wax natiijo oo Soomaali weyn ay ugu jirto ma jirto dhib iyo dheefba ani waxaan dhihi lahaa warnimayow waqtigeeda ha dhamaysato kan galmudug u dhashtayow bax galmudug dhibaatada taalo wax ka soo qabo kan galmudug u dhashtay galmudug dhibaatada taalo wax ka soo qabo maxaa soo haray kaam Puntland reer aboobe hooyadii federaalka idinkana dalkiina oo aad ka dhigteen meesha Soomaali oo loogu soo abaabulo dhibteeda iyo rafaadkeeda ya adiga haddii hooyadii federaalka aad noqotay waxaa la rabay kuwa adiga hortooda hana qaaday inaad si tartiib dawladnimada aad wax u barto laakiin ma ahayn in maanta tii oo masaakiintu wax u raadinaysay inaad adiga ku soo jeesatid ma ahayn mid allaale midkii la magacaabo faroole waan soo arkay aniga kuwii kale aan wax kama sheeg faroolaan soo arkay cabdiweli gaasan soo arkay midkaan hadda hebel dani ay leeyihiin ayaaba ugu daranba maalintu u qabsaday siis u bilaabay way lugooyo ina adeeryaalow sidaan ma aha waayo dhe hilibkaan oo bisinka loo qabanayo ayaa kulligood xalaal ma wada noqonayo qaar baa la ridaa Soomaali oo awalkeedna wax xun leh ay ku dhaqmi jirtay wax leh way isdhici jireen iyo way isxoogi jireen ya way iskufsan jireen ya hadda in oo cad samaane ama cad oo wanaagsan leh laga helo ma dhici karto aniga waxaan dhihi lahaa maxaa la dhihi jiray shariifo سعيد آدم موسى وكسلام شريفو شيخ شريف مكدها يعني شريفو دلميغا او حسن شيخ مرهور جيي كسمايو دلميغا حسن شيخ او مرهور جيي كسمايو يا adna mid labaad ha geeynin adigana mid labaad ha geeynin nin weyn baa tahay laba xasaanada isla wadataa mid sheekhna waa wadataa mid oo madaxtinimo ku soo martayna waa wadataa ilaasho yay ku qaadin wax la yiraahdo hami oo maxaa la dhihi jiray dawlad jecel iyo waxaas yay ku qaadin shariifo ilaahay ka cabso ani wax badan inaan meesh ku jiro maba ugu talagelinba xanaaq oo liiri shariif sheekh ahmed kismaaye u socday ayaa diyaarad laga celiyay darteeda u soo galay war aabihii waligii ma tagin aabihiis ma tagin muxuu ka raadinaa kismaayo dulmiga asaga kismaayo ka raadinayo shariif sheekh ahmed maxaas yahay ya aliyaali iyo bal dhulkaas iyo muaado oo shabeelaha dhex oo al-shabaabta ku jirto la muu iskaga xoreysto kismaayo maxaa u yaal shariifo abi xasan sheekh mahmuud kismaayo maxaa idin yaal dalkiina حتى magaalo madaxdiina jowhar xor ma ahan hadaad wax tarayso magaalo madaxdaada le maad xoreysatid intaad isku tagtaan khibradii aad ka qaadeen madaxweynenimada ya haday baqayaana ahayn oo ilaahay idin fahamka idin fahamsiiyay ya maad ku xoreysataan dalkiina macaawisleyda idin ka roon maanta qolada macaawisleyda leeyahay ayaa idin ka roon oo dal xoreynooyin idinka maxaad tihiin waad waxaysaa Kampala tagaysaa dal dadaad ayaad ku soo raaxaysanaysaa adma iskale Kampala ya adigna Turkiya bahaysaa oo ku soo raadsanaysaa midda kale Tanzania miyaa moogi
هذا ما إسكاله مس هو يدا أب هذا إسكاله ما أب يصير ما تولدين وريا هوي أنا وحا إذن به لها سدد كيني دمار وديستو هذا حر وغا نقضان أي وغا حر يا وحرية شبيلها بحي iyo shabeelaha hoose shaqaba kuma lihiin ba shabeelaha hoose dadaaba u soo baxayba laakiin idinka shabeelaha dhexe si dameer kale oo xurnimo masaakiinka dameerkiiba xurnimo ku mari laayahay ya dameerkii ayaa xurnimo ku mari laayahay magaalada maxaa kale ninkaas oo beerihiisii geedihiisii ber uu ku gurta uu laayahay ya oo dhuxul iyo balaayo iyo bakti loogu gurooyo ya ayaad buuxaysaa kii sidaa u galayay ayaad garab soo siinaysaa hebel axmed ilaahay ka cabso ha safrin safarka meesha iskaga jooji in adeero anaa kula talina dadkaaga ma kula talinayaan been iyo khuruufaad shariifkii baa loo xaameeyey shariifkii asaan la yeelay shariif haddaa tahay adiga meelaad shariif ka tahay shariifna waxaa la yidhahdaa man sharafa nafsahu fa huwa shariif waay nafsadaada sharaf horta markaasa shariif noqon kartaa laakiin dad dulman inaad baxdi dulmi kale aad kor saartid ya oo nin oo dulmi isku caleema saarayo dhiig dadaad isku mayrayo dhiig masaakiinku oo isku kordhaqayo ayaad rabtaa inaad haanta u qabatid aad ku soo gedisid dhiigga dadaad maxaa way waxaas ka joog shariif anaa runta kuu sheegaa ka joog ani weligay shilin aad leedahay ma cunin shilinna kaama rabo dameer ii gadna kuma lihi kareeta ii gadna kuma lihi ya anaa runta ku siinaa ka joog meeshaada iska joog jubbooyinkaas dad baa iska leh adigaba maqaankii xamar aad leedahay maqaan xamar maxaad adiga ka taqaanaa xamar in yar baad ka degan tahay haddana waxaad leedahay maqaankii xamar oo dawladda meel ay u dhaqaaqda ay laaday tafaha aad haysataan idinka abgaashiina anagaa iska leh maqaankii xamar anagaa iska leh ya marka adiga taan ayaaba saan ugu adkaysanayso adoo iska leheene maxaa dad adiga intaad dayaaro aad korto oo lacag bixiso dulmigaasayto aad kismaayo u tagoysaa ya dulmigaas aad kismaayo u tegayso micnihiisa maxay tahay warnimayo ninkaan ku saxsan yahay ya nin maanta sheekh la yiraahdo shariif ku darsaday ya oo wax uu ku dhaqmi kara miya waxaas ina adeeryaalo inuu baxo ya nin dhiig ku meeranayo ya in haruubka haanta haruubkeeda u qabsado ya oo madaxa uga gediyo ya sax miyaa arrinkaas sax miyaa soomaaliyeed ilaa anaga maanta oo nabad aan u heli la'nahay waxaa waaye dulmiga laisku garab siinayo waay aniga maba islaheenba sheekh shariif miyaa ma ogyaa dayaarad intuu koro kismaayo tega wallaahi bilaahi inaanan islahayn laakiin xasan sheekh waa islahaa abdikays kaalihiis hagaaji kan maxaa la dhihi jiray ninkaas waaba islahaaba waayo dhe dhibtaan ninkii dhaliyey ba asaga waay xasan gurguurta waay ninkaas waa qalbigay waaba ku jira inuu bixi doono laakiin shariif sheekh axmed aabbaxa wallaahi inaan qalbigaygu ku jirin marka walaalayaalow mooya banuur oo ku salaam aasha joomo sidoo kale adnaadee ciise bashiir
walaalayaalow dulmi ma fiicna dulmi ma fiicna dawladdan la sheegaayana dawlad ma aha xukuumad waay idinkaa doorateen haddaba waktigoodii waa u dhammaaday wax yar unbaa u dhiman xukuumaddan naceebka aad u qabtaan oo haddii masaakiin hataa aad dhulka ku riqdaan ilaan laba dibi ama laba maroodi meeshay ku dagaalmaanaa la yidhi oosaa ku baaba'a war ma xisaabtamaysin miya haddii adinka oo aqoon fursad aad yeelateen in dadkiina wax idin baraan inaad aqoon yeelateen hay-adaha adduunka aad macnaha fursad aad ku hesheen ya ma masaakimiinta inaad u isticmaashaan miya xooggiina ya ilaah ma ka cabsanaysin miya masaakimiin baa hoostiina ku baaba'oysaa ya masaakimiina hoostiina ku baaba'oysa ina adeeryaalo meeqaa sano laba dhinac fiiri al-shabaabna dhinaca ku haysataa axmed dhuxul oo al-shabaab la heshiiyeyna dhinac ayuu ku haystaa markaasaad qabanoysiin ya haddana labadaas way is og yihiin ya al-shabaabta iyo axmed dhuxul waa is og yihiin masaakimiintan aan qoolaysano waay been yaan laisu sheegin axmed dhuxul iyo maxaa la dhihi jira al-shabaab waa friend waayo dhuxushii al-shabaab soo gooyso ayaa dekada kismaayo lagu dhoofiyaa waan ku salaamay axmed nasiib marka isma oga miya soomaaliya run markaan sheego isma ogaa maad leedihiin haddii micnaha ay is ogolaan laheen ya fursad ma siin laheen nimankaa wuxuu dhihi lahaa dad baad meesha masaakiin ku haysataan ku dulminoysaan lacag kama helaysaan geedihii aad soo jartaan aniga agteeda laguma dhoofinayo axmed dhuxul hayste wuxuu la heshiin lahaa adduun weynaha ayuu la heshiin lahaa dawladduu la heshiin lahaa si dadkaa loo curyaamiyo oo masaakiintaasna ay xurnimo u helaan lagama yaabo inta axmed dhuxul ay heshiis ay yihiin al-shabaabtaas oo dhuxushaas meeshaas laga dhoofinayo ya al-shabaab in laga adkaado lagama yaabo aniga taasaan qabaa ma laga yaabo in laga adkaado waayo laba al-shabaab wey midna wuxuu kuu joogaa gudaha ayuu kuu joogaa midna wuxuu kuu joogaa banaanka badduu kuu joogaa intee marka adinka mari kartaa ya cismaan maxamed waa ku salaamay inteed ka mari marka waxaa waaye aniga waxaan dhihi lahaa hawiye ma aha war siyaasiyiinta hawi haddaayba hawi unbaad ahedeen siyaasiyiinta hawi wax baxay waay macna hawi siyaasiyiintoodo war goboladaas idinka aad leedihiin aniga hadda intii aan baxo gaalkacayo ka soo bilaaw ya ilaa iyo shabeellaha hoosena waad ku darsateen xamartii oo maanta cid kastoo soomaaliya wax ka dhisatay ayaad leedihiin anagaa iskale war dadkii intaas yar beerahaasayta un ilaahay markiis ay quudanayeen oo nin oo maxaa la jiri buur madoobe iyo dhagax buur ka yimid oo la haysto miyaad garab kaga siinaysaan kaas iyo kan yaa walaal idin ah yaa idin dhow yaa deras wanaag aad lahaydeen yaa gelaydii soo falo idin timaada ma gelay dhagax buur laga beeray ma xamar laga cunaa muus dhagax buur laga beeray ma xamar laga cunaa zaytuun dhagax buur laga beeray ma xamar laga cunaa ya war ambihii kismaayo yoontoy ka soo bilaaw ya ilaa iyo ka gee baar dheere dhulkan jubbooyinka ambihii ka baxa xamaraa la keenaa waad cuntaan ilmihiina ku dhaqaalaysataan naagihiina ayaa meeshaas waxay ka helaan dhaqaalay ka helaan dambiilahooday ku waxamaystaan dameerkii ay saartaan ya dameerkiina ayaa dhaqaalo ka soo saaraa marka
in adeeryaalo run ma isu sheegno siyaasiyiinta isku sheegaya hawii siyaasiyiintoodo hadday dhibta waxaan u haysanay habar gidin laakiinse hadda abgaalaaba noogu soo darsamayba waxaan dhihi jirnay awal abgaalan walaalnahayo salaama naas weyn na wada dhashay salaama naas weyn madaxa la saarto qaa'imaday ahaydba salaama naas weynta la sheegayo ayaaba qaa'imad ahayd waayo ilmo saxiba maba dhalinba ma maqlaysa hadday walaalo yihiin iyo dadka jumbooyinka iyo kuwa abgaalka salaama naas weyn ay dhashay iyo oo runba ay tahay dee walaal saxna ay yihiin sida hadda abgaalku ku dhaqmayo siyaasiyiinta abgaal dhan ma sheegoyo waxa isku sheegay siyaasiyiinta abgaal oo hadda dagaaladan soo baxeen dagaalada ka hor abgaal siyaasi aanay maba maqli jirinba ya maba arki jirinba ilaah baa ilaah dagaaladan ka hor maba maqli jirin mana arki jirin laakiin hadda ya dheereeye ayay noqdeen dheereeye ayay noqdeen dheereeye war dheereeye kasta ahaawo war waktiyaad leedahay wakti waa la doogayayaan la dacroon abgaalow siyaasiyiinta abgaalow waa la doogayay ha dacroonina shariifow kismaayo ha iska tegin wallaahi bilaahi kismaayo ha iska tegin sharaftaada dhan waxay ku dhammaanaysaa maalintii kismaayo aad tagto aniga xasan gurguurta hadduu tagana la yaabi maayo xasan gurguurta hadduu tago aniga ma la yaabayo waayo ninka dhibtaan dhaliyeyba waa asaga golihii shacbiga oo diidan ninkii dowladnimo u oggolaaday axmed madoobe waa asaga maamul goboleedyadan baktiga ah ninka kor u soo qaaday waa isaga ya maamul goboleedyadan oo baktiga ah ninka kor u soo qaaday ninkan waay xasan gurguurte waay xasan sheekh ma dhahay sheekh wax fiican waay marka aniga waxaan dhihi lahaa war xasan maxaa la dhihi jiray siyaasiyiinta abgaalka wax u sheega abgaalow siyaasiyiintiina wax u sheega odayaasha munduloodow dadka idinka tirsan oo siyaasiyiin isku sheegayaan wax u sheega wax ay ayaga maantada mas-uuliyaddeeda ay lahayn war dalka dawlad baa mas-uul ka ah xukuumad baa mas-uul ka ah dawlad ma dhahay dawlad annagoo dhanaa dawlad ah dalka xukuumad baa mas-uul ka ah xukuumaddaasna farmaaja madax u ah farmaajana idinkaa doorateen asna wuxuu doortay maxaa la dhihi jiray seedigiisii doortay maalintaasaa la rabay inaad ka fikirtaan dadkan qoladan intay wax ka yihiin inaad dhahdaan ma dhihin waad oggolaateen 275 xildhibaan oo idinka idin masilaya ayaa macnaha ansixiyey hadda bakbakda iyo bararacda aad haysaan iska daaya hadday qaldan yihiin toosiya laakiin uqdad oo bilaa micno ah oo naag oo kale ah naag ficil waxaad keenteen ficilkii naagaha oo kale siyaasiyiintiina soomaalida isku sheegaya ya annaga siyaasi maba rabnaba ya sidaayna le haddaad nagu dhaafi kartaan waayo siyaasad oo qori dhinac yaalo oo maalin kastoo lisdilayo oo maalin kastoo laisku adeegsanayo taas ilaahan ka migan galnay runtu waa necabtiin aniga hadda haddii inta qabiil iyo balaayo iyo bakti aan ku faalinayo waad soo ordi lahaydeen 2,000 3,000 ayaa iiman lahaa ama hadda haddii qof shaksi aan caaynayo
maalmaha aan murursadaha oo dadka gubeen ay rabeen inay cunaan ma aqaan aan cayn jiray ya facebookayga hataa habeenkii bir aan ku seexanay ma lahayn habeenaa lii soo wacay adeer goormeed soo gelaysaa lii dhihi jiray laakiin hadda dhibta anaga na lagu hayo ya oo khaasatan siyaasad Soomaali oo dhan dib naguma hayso anay waxaa dib nagu hayaa siyaasiyiin isku sheegayaasha hawiyaha habar gidir ha ahaadaan sida oo maxaa la dhihi jiray fiqi iyo ya ilaaha ku roon hataa mahad salaad anaga shaqa isku malihin wax nooma geysto fiqi kowdhe xasan sheekh iyo maxaa la dhihi jiray wixii kala soo baxay iyo shariifkan oo hadda soo baxay aamin idin waa ku salaamay marka war hawiyow haddiiba isreeban kartaan isreebta dalka dawlad baa wax madax ka ah wallaahi dawladdaas inay xukuumaddaas inaad ka dambaysaan wax idinkaga fiican male ani way fiicantahay idinma dhihaayo aniga xukuumadda way fiicantahay idinma dhihaayo anigaaba dhaliil weyn u hayaaba macal madaxweynahooda laakiinna meesha ku jirtaa shuruuc baa jirta afgembi military ma jiro meesha afgembi military meesha ma jiro dawlad oo si dimuqraadi lagu soo doortay ayaa idinka aad doorateen madaxweyne barlamaan doortay madaxweyne ra'iisul wasaare doortay ra'iisul wasaare barlamaan ansixiyey ra'iisul wasaare oo wasiiro soo dhisay wasiiradii barlamaan ansixiyeen ayaa meeshan yaalaan dhinac looga gudbi karo male waa haddii idinka shaqadii reer baadiyenimada aydan ku jirin geeljiranimada oo qori le wada tantan hadda xamar oo magaca al-shabaab isku bedesheen oo maalin kasto qoriga isku wasaysiin qori aan isku wasayaan dhihi karnaa taas maayo wax kale maaha bal nin masaakiin iska ah baawurkiisu bato haw maxaa waa waxa ilaahay ma lihidin miya ilaahay ma ka cabsanaysin miya ya diinta islaamku waxay dhigaysa ma ka cabsanaysin miya war ilaaha ka cabsada aniga maanta wax kale uma soo gelin ninkaas xasaanada wato oo la leeyahay sheekh shariif sheekh axmed inaan wax u sheego ayay iga ahayd sheekh shariifow tii xasan sheekh oo maanta reer jubbooyinka masaakimiintaas uu kuri war jubbooyinka abgaal ma dego run maan isu sheegaynaa misbeen ma degtaan ma dhibta maxaad kala doonaysaan marka faa'iidadiina maad aliyaale iyo maxaa la dhihi jiray jalalagsi iyo dhulkaasayto ilaa beledweyntan hadda aad ku darsateen iyo maad ula tagtaan faa'iidadiina oo macnaha aqoontiina iyo wixiina halkaasaa loogu baahan yahay maxaa dhacay ya dhib annaga dhibtii axmed madoobaaba nagu filan ya dhibtii reer buurmadow iyo dhibtii reer qabri dahare iyo dhibtii reer jigjiga iyo kuwaasaaba nagu filanba oo dhaantada meesha siigada lagu kicina aad aragteed yaabaysid taas oo qorigaas dhibtiisaaba na haysataaye ma siyaasadaad ku kaalmaynaysaan idinkana waan kaa qaaday nuur shuuko ma siyaasadaad ku kaalmaynaysaan innaa lillahi wa innaa ilayhi raajicuun war abgaalow haddaydan waxba aqoonin oo siyaasad aqoonin ya war dameeradiina way idin joogaane dameeradiina soo furfurta dameeradiina ku shaqaysta midda kale aan idinka digaya waxay tahay waxaan aad sheegaysaan ya oo aad leedihiin maqaamkii xamarna iska daaya maqaan xamar nin wax yaqaano oo awood waxbarasho leh ya oo waxtar leh ayaa maqaan xamar wax ka qaban kara idinku waa la ogyahay dagaaladana soo ilbaxdeen qoriyaad ku soo ilbaxdeen idinka dhexdiina ayaad ku soo ilbaxdeen muuse suudi iyo cumar finish hebel iyo jini kan iyo buqle
kan iyo bururuq idinkale isku soo baxdeen ya meequu dilay 10 meequu dilay 100 meequu dilay 1000 saasad ku soo baxdeen abgaalow waxaad yeelaysaan kismaayaha iska tegina abgaal looguma baahna waa la doogyayaa la dacroon tan way dhammaanaysaa ya eeb bay dhaafaysaa ya war iska daaya dadkii oo muuska iyo ambaha iyo bax kasta idin keeni jireen oo walaalaha aad ahaydeen ya nin dhagax buur ka yimid ya ha u lugu xirana والله من دغ بور كيميد هقول له حيرنا هذا حسن كول واكو سلامي محمد حسن نسيلو كلين شهر قرايه انا دكي شهر قرايه دهميه لكن هذه دن اذن كجرتو يا كل ددبا اذن لا حريرا وشهر قرايه ايغنا سي معنا دكي كلا اي واركان او نينكان ماشي uga haray shariifkan la leeyahay kismaayo u socda oo dawladana macna ama kala xukuumad isbending gelisay يا ولكن هذا أولي إلا وأبحى إنه أب أركو يا هاشتاج جلية إنه قلدية هايس أركو أو كسماي وحبو أولين عليالي إيو جوهر تاشاككم على واحد هذا هدو ساقي حيبتاس ودقنا جوهر وادو البارات كيو وحي واي يا علي سلو وكسلا الحمد لله هذه دلمي قال لي بأنا عن كجيرينو إيه معناه أنا شخصيا ده قفك للدلمينا يا مشيوي صومالي هذه دلمي قال لي كجيريسو كي مدحوين الدلمي لوضو كي رئيس الوزراء الدلمي لوضو كي وزير الدلمي لوضو مسانا دولة ما نقونيسا يا قال لك عبسنا قال هذا مريكنا لو صوت هذا شركي او قرامه ميدوبي نين والبا واسو صوت تيرويا بوركو اسكو سو جفويا يا فرماجه ما فائده ويا ما سميستي يا وحو سميستي مال فرماجه فائده wax faa'iido uu samaystay ma bajiro asaga shariifkaas ay dalale isku mid leeyihiin asaga xasan sheekh maxamuud isku mid leeyihiin kii abdiraxmaan abdishakuur isku mid leeyihiin hadda badan la sheegay dhibaatada iyo rafaadkan hantidii masaakiintan wax loogu qaban lahaa lawyer hala qabto jinni hala qabto yaa sameeyay ya siyaasi isku sheegayo ya ayaa sameeyay waayo badan Soomaaliya hadda ma imaanin badan Soomaaliya hadda ma lahaanin meeqa Kenya iyo Soomaaliya daras way baday daras ku yiin maqli jirin laakiin baday isku haystaan ya dadkaanayto oo dagaalka siyaad bare ku qaaday oo ay dhaheen badda sokoran ka dhigayna badda malaban ka dhigayna badda biyo xareedan ka dhigayna dhibtaan dhan ayaga keenay hawiye ha aado daarood ha aado eeliyaash ayaga keenay haddana welina way ku socdaan marka ani waxaa idin dhihi lahaa nimankan waxa loo sheego communitygiina baxsada wax sheega nimankan ilaahay hanaga qabto ya cadow ilaahay Soomaali u soo diray way ya nin oo maanta gobolkiisii oo kari la yahay ya oo haddana xamar oo dhan oo ilaa waqooyi ilaa meel kasta dadkoodii oo guryaal uga dhisano oo la wada leeyahay oo leeyihiin maqaankii xamar waa ay leeyihiin ayaa hadda oo kari waayeen waxba samayn waayeen waxba laa walaa waxba samayn waayeen
ayaa hadda waxay ku leeyihiin aniga madax waay talaan ka soo dhiibana Kismaayo war tala ka dhiibo lama diinin yaa tala ula dhiibanaysaa ya qofkii talada aad ula dhiibanayso yaaba ma Axmed Madooba ya إن شاء الله بإذن الله الكريم أنيقا كل أني تبرتي إنت سيئهات شير قرايا إسجارسية ننكا سيتو انتباطة سيتو ماشاس دلميقا سيتو أولا صعبو إنو دلميقا سيرو إنو لطوو كسمايو شريف شيخ أحمد يا إلهي هنقا قبطو دياردو كورون لقرح الله أكسو شريفو ديارد الله كل قرحيو حسن شيخ أدنى هداد كدر سنتا سيدو كلا الله كل قرحيو وايو دي شاكو كمالي عليالي تك يا معاوز ليدا ما أنت كارون واد بحري واد عررتي منا كمبالو دقا منا تركيو دقا منا تنزانيا أي أساسا دوكال الدكتين شعب بيجينينا انت هتكتكتين فول حمد اي قبان هدا عرقت يا بيسد مقع معاوز ليه لبحين معاوز ليه دا اذن دان تمان قول معاوز ليه قول شريف يا حسن شيخ داون 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 شيخ شريف يا حسن شيخ مقع عافي عن محيكو هيلين ورطاين محمد اسماعيل الداير وقت سلام أبر شرقرين الحاصل إن شاء الله بإذن الله الكريم ودلالينا علي وقت سلامي ودلالينا دربان كانيتو دبدو ذكريبي مينو سياسيين تا قلفسن هويها سياسيين اسكو شيغياشا او قلفسن lagu oorkacsanayo wariyaa oorkacsina goormee la diiday anigii aaba diidan maanta oorkacsi ya idinkoo magaalo madaxdii degan ayaad oorkacsi ogoshiin waa la idinku oorkacsadaa kan Kismaayona waa idinku oorkacsadaa kan maxaa la dhihi jiray oo Puntland joogana waa idinku oorkacsadaa maxaa tihiin marka ya waxaan u malaynaa aniga inaad ka galaada goyseen marka in dameer iyo waxa sayto inaad ka baxdeen maxaadba ka baxdaan oorkacsiyaaba gasheeneen in la idinku oorkacsano hadhoodina la idinkaga tago meesha ya wallahi magaca hawiyaha waad ceebeynaysiin runti hawi waad ceebayseen hawi naga taga waa ceebayseen goormeed magac xumadan iska tiraysaan markaad wada socotaana kaayan ani hawiyaan ahay ani hawiya maxaad hawiya ka tahay haddii lagugu oorkacsanayo meeqaa sana aniga ma yeelay aniga nin la igu oorkacsado aantenka ma yeelay laakiin adoo dad iska dhigayso haddaad ogolaatay in lagugu oorkacsado maxaa tahay ya war ka joog maaha siyaasiyiinta lagu oorkacsanayo oo Kismaayo u socdaan Kismaayo ha tegina haddaad ilaaha leedihiin haddii gabadhiina guur aad la rabtaan ya qoor iyo xer haddaad leedihiin ya hawiyo ya maanta idin taagan tahay maanta war nimankaa jubbooyinka wax dhibaato idin geysteen male qofka hadduu dhibaato kuu geysto ku xumee war dadka jubbooyinka ya maxay dhibaato idin geysteen oo nin ka yimid maxaa la dhihi jiray kaas kale buur madow iyo dhagax buur nin ka yimid hadduu maanta masaakiin kaaga oorkacsado ya war maxaa tihiin idinka dad miyaa tihiin dhoqoladan hawiyada la sheegay waayo dheer ninkiina ma cishan kartaan miya war yaa hoy meesha wax kuuma jiro siyaasi haddaad tahay annaga siyaasi noo tahay
ma dhihi kartaan miya war naga ceshta dadkiina allihiina alla hadduu yahay tii xasan sheekh aanba dhibteeda aan la kici la'nahay ninkaas hadduu rabo reer garbahaare maxaa la yidhi reer buurdhuubo iyo buurdhuubo maxaa la dhahaa kaas kale jigjiga iyo dhulkaas iyo dhagax buur iyo ha soo wato idinka dadkan walaalaa batiine maxaa idin geeyey bogomogool siyaasadiina oo isdiidan darteed maa masaakiin meeshii la dhihi jiray laba maroodi meeshay ku dagaasho oosba ku baaba'a macnaha hadda siyaasadiina hadday isdiida idinka iyo farmaajo ya masaakiinta maad eber ka dhigaysaan marka war ilaahay ka cabsada iska dhaafo waxaas ya duubabka hawiyaa la sheegay ana duubna ma aqaane ugaas miyaa lagu jeedaa ma aqaan duube war nimankan wax u sheegay idinkaa ka sareeya dadkiina naga ceshta yay tegin meeshaas annaga wakti alla waktigii ilaahay na gaarsiiyo dulmigaa waa la iska qaadi doonaa laakiina ka horaysaaye waxaan oorkacsiga la idinku oorkacsanayo ya magac hawiyow war meel naga istaaga meel naga istaaga warkii daaroodka ahaa oo maanta madaxweynaha ah ayaa diiday adigana waxaad leedahay waa aqoonsanahay kii daaroodka ahana wuxuu yidhi ma aqoonsani malka waran wuu xiray walaalkiisuu xiray mariixaan iyo waa maxaa la dhihi jiray mariixaan iyo maxaa la dhihi ogaadeegna waxay isku yihiin waa la og yahay haye marka adi inteed ka gelaysaan dadkii saas isku ahaa ayaa dulmigiisii arkay wuu diiday farmaajo adigana siyaasadad wax ku abuuri rabtaa ka waranhay ma fiican tahay sidaa maya 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 dadkaa u tura dadkaa badarka idin soo beero idin keenoyiin cambaha idin keenoyiin muuska idin keenoyin u tura halkaasaana uga baxay aniga inta ku jirto ii sheergareeya ani ma aha masaakimiinta u sheergareeya walaalka haddii waxba u tari karnaa la yidhi afka wax ugu tar gacanta afka wax ugu tar idinkoo sheergareeya asxaabtiina arka oo hashtag saara ninkaanayto si uu meesha uga haro intaa ku dadaala khayran idin rajayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayo dhe waqti dambe waaye habeenaan qabnaa marka insha allah khayran idin rajayna assalaamu calaykum